qodobka saddexaad nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ee uu leeyahay iga qaata oo ku amal fala wuxuu rasuulku yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dariskaaga ihsaan iyo wanaag u samee hadda sidaa yeesho mu'min baa tahay waxay ku tusaysaa inaad iimaan leedahay khayr qabto dariskaaga wanaag u samee dhibkaaga ka celi wixii wanaageed la dheer tahayna ka qayb gali dariskaaga ka warhay dariskaaga ihsaan u samee laana ruuxa iimaankiisu wuxuu ku gowracan yahay kolba qaabka uu dariskiisa ula dhaqmo nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xadiid kala wuxuu ku leeyahay saddex goor buu nabigu rabbigii ku dhaartay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay wallah ilaahay baan ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartay muusa rumayni yaa waay rasuul ilaahayow ka saddex goor aad ku dhaaratay inuu san rumaynin oo iimaan lahayn waaba mid hoogay oo khasaaray ayuu yahay nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wa idda dariskiisu uusan aamin ka ahayn sharkiisa dariskaagu hadduu dhibkaaga ka badbaadi waayo iimaanka aad sheeganaysaa dib noqosho u baahan yahay su'aal baa saar calaamad su'aal baa saaran iimaankaaga maxay nabi maxamed baa saddex ku dhaartay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi inuu ruuxaasi iimaan lahayn mar rumayni buu nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wa arin marka u baahan inaynu aad uga fiirsano nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa loo sheegay maalin maalmaha kamida waxa looga sheekeeyay haweeney salaad badan habeenkii oo dhan salaad bay u taagantay maalintiina waa soomanta gacanteeduna sadaqada waa u furanta way sadaqa badanta laakiin mushkiladeedu waxa weeyaan dariskay carabka ku dhibtaa way carab dheertaa dariskeedu kama badbaadaan nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi taasi naartay ku jirtaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam awi salaadii badnay awi soonkii badnaa awi sadaqadii badnay naartay gashay buu nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi mid kala loo sheegay nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa lagu yiri hebla waajibaadkeeday gudataa laakiin ma sadaqa badna salaad badanna laguma oga soom badanna male waajibaadka way ka adag tahay laakiin dariskay u roontahay nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi taasi jannaday gashay buu rasuulku yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi u fiirso soonkii badnaa salaadii badnay cibaadadii badnay marka dariskaaga ku xadgudubto naar waa ka badbaadin waayay dariskaagood ihsaan u samaysay ama sharkaaga aad ka reebatayna salaad yaridii iyo soon yaridii iyo sadaqa yaridii sabab wuxuu u noqday inuu kabo oo ilaahay jannadiisa aad ku gasho tabaaraka wa tacaala sidaas daraadeed dariskaaga ihsaan u samee waxaad noqonaysaa ruux mu'minaad noqonaysaa iimaankay daliil u tahay